aniga waxba dhulka igama yaalaan nimcaan oo isma maqlaysid cirka soo dumi ilaahayna waxaan ka baryayaa inaad baaskoolad qosh soo siiso haddaan lagu murmin halkan ma dad baa deganaan jiray mise waxa weeye waa gawaan bay ahayd haddaan galgalin ka dhigin baan ku sheegay adna soo daa nimcaan qorgaab oo ah afayeenka beelaha iyo door soo daa xasameynaysa tan caynaba timaado inta isqaawiya iska jaraya bisa kamarada iska duubay waa wareey waa ballan kale oo heer caalami ah shardi baan galina keen shardi baan galina inta adiga fiir aniga waa ka baayac mushtariya sida jaamac siyaadku ka baayac mushtari jiray waa ka waxaan sameeyaa expectation imputation baa ku sameeynaya anaga qalka waa ku dhoofinaya dadkiisii noloshiisa maanta ay horta ninkan wareer baadiye shan boqol nin oo dhubahata 600 sano loo socda ma dhalanaya garaadka maanu hayn kii ku doodaya guurka fasaxa ma yahay garaadka ma hayn guurka fasaxa diiniysu afkii ma haysan qofka cantaraba qashta lama dhageysan nool baan haysaane nimcaan ka baxa miiriyaha af nool baa haysaane ka baxa miiriyaha okay ana ku socolinaya nimcaan qorgaab wuxuu dhahay 500 nin baa dhintay oo dhubaanta dhageysan ku dhameeyay wuxuu dhahay sida oo kale dad badan baan leeynay waan ilaga waalay hartiba inaga waalay 25 Agost 2023 meeqa ka dhintay maamulka Soomaaliland waxa ka dhimatay 2500 qof baa ka dhimatay meeqa maxaabiista 520 inta waliba shalay ilaa durad baadiyada iskeeda isugu madax banaan soo dhawaada barnaamijkeenu waxa uu ku saabsan yahay lacala hadii maamulka Soomaaliland ee hadda lagu ururiyay og iyo caynaba hadii ay dagaal soo qaadaan halku muxuu noqon karaa tan kale hadii hal xaba ay soo ridaan sida ciidamada SSC Khaatuma ugu horeeyay General Abdi Madoobe waxa uu dhahay waxaan tagi doonaa Burcaye Berbera ayaan si nabadgelyo inaan ku tagno dadkoodana gumaysan doonaan horta marka hore waxaan ku bilaabayaa nimcaan qorgaab lacala hadii aad dagaal soo qaadaan dagaalkaasina uu dagaal qabiil isku bedelo hadda xogaa yar qaran iyo qabiil baa loo dagaalamayay Soomaa lacala hadii isku bedelo Soomid foolxun ma noqonayo oo okay wallahi horta waa dhamaan baa khiyaarta asxaabta ku xiran gaas filibis waa soo dhaweynaa waa mahadsantii saaxiibayaal horta su'aasha hadda ka jawaabo gaasow horta runtii waa yandaro hadii imika sheekada waxa weeye dawladda iyo dhaxaysa iyo dadka deegaanku ay qabiil isku bedesho horta saameynteeda leedahay qurbahay ku faafaysaa waxay ku faafaysaa dadkii wada deganaa hooyooyinkii iyo xaasaskii bay ku faafaysaa noloshii bay saameyn ku yeelanaysaa Soomaal garan marka sidaas darteed hadda anigu waxaan soo jeedin lahaa oo aan oran lahaa arintaas hadii qabiil isku bedesho dhibaatadeeda leedahay dhibaatana ka hortag weereeda ka daba tagmana hadda waxaan noo banaan in aan ka hortagno dhibaatada saameynta ku yeelanaysa mustaqbalka dhow iyo ka fogba sababtoo dhulbahanta iyo isaaq maanta 5 nin ee dhulbahante iyo 5 nin oo waxa weeyaan isaaq oo habar jeclaa waxa weeyaan ergaabo iyo erafid oo ka wada shaqaan ragga saaxiibka ee wada nool ee waxa weey geer isku raaca ee geer aan ka wada cabaya ayay saameyn ku yeelanaysaa hal mid aan ka dhex weydiiyay su'aal maanta waxaa jirtay nin seedi ay u yihiin ayna dhaleen oo muddo ceel afeen ku ganacsanayay in maleeshiyo beeleed habar jeclaa ay dileen isla 4 saacadood ka bacdi iyana ceergaabo nin dhulbahantaa lagu dilay oo isna isir meesha deganaa oo reer caynaasha ay dhaleen ka fac meesha deegaan haan iyo isirhaanba ku deganaa soo lama organ hadda dagaalkii qabyaalad buu noqday oo habar jecliyo dhulbahantu hadda dagaal ku dhaxeeyaba horta waxa weeyaan gaaso su'aasha isweydiinta waxay tahay dadka nimanka ninkaas diga ay dileen horta inagu hadii warbaahintii nahay waxyaabaha qaar baa wanaagsan afkeena ka dhawrno Soomaal gar imika sheekada waxa weeyaan imika ninkaas diga waxa weey dhulbahantu Soomaa buu ahaa inaan isaaq uu wuxuu qabay Saad Yoonisa habeen Yoonisa okay sifiican qabay deegaanka dadka caruurtiisuna dad waaweyn bay ahaayeen waa nin muctarif u ka magaalada halkaas ayaa lagu dilay marka macna dadkii deegaanka ugu cadcada okay idin laha ma isaaq aad xisoo jeedinaysaa dhulbaanta aan ku dhulbaanta isaaq oo soo jeedin way labadaba dhinac waa soo galaa oo familka dhulbaanta ma dhalay waa soo galaa labadaba waaba soo galaabe ma abtiir dhulbaanta iyo isaaq waa laba nin oo waxa weeyaan isdhalay
haddii runta lagu sheegayo welibana dhulbaanta marka hadda is dhasheen waa maxay sababta 8 bilood dadkooda u leeynaysay u barakicinaysay dhulkooda u burburinaysay horta inaad waxaad kala saartaa inuu isla fahnaya muhiim ah waxaad kala saartaa ma dawlad baa dadka leeynayso iyo masaakiintan iyo dadka maatida magaalada joogto ma dawladda rasaasinaysa misaahinta reere iyo isaaq isku imaadeen bay xabada la dhaceen misaal ninkaas waa ninka wuxuu huwaya magac dawladeed wuxuu huwaya magac isaaq uu huwaya taawin ognahay okay waa ku soo maadaama sidaa tahay aan dhameeyo waa dhameysanayo maadaama sidaa tahay oo waxa uu magacii guud yahay isaaq oo dawladda magac isaaq uu huwan tahay te muhiim ma aha xaqna looma laha in la yiraahdo isaaq baan laay naga dhulbaanta biyaha ka cabnaa waan ka cunteynaa iyagu way naga cunteeyaan wadadaan walaalanahay wadadaan saxaabnahay marka aniga hayra iman sheeka dawlad okay diidi soo dhaw marka hore waxa jira tusaale ahaan ninkan doodiisa wada aragtay si fiican okay dagaal dambe haduu dhaco general Cabdi Madoobe waxa uu ballan ku qaaday in ilaa barbaraatiriye burco iyo hargeysa ay gacan harti gali doonaan bal sidee warartaanka horta taas horta waa marxaati madoon sadar muuqdana su'aal ka dhan ninkan hadda hadlayay wanin isaaqa waliba habar jeclaa habar jeclo iska daa habar jecle isaaq oo wuxuu anigu dawlad baana iyo qabiilka kala saara buu yiri waxaan rabaa inuu isagu qabiil yahay inaan ku wacdayo magaalada Laascaanood markii la isdhibaateynayay argagixisada SNM ay wax dhibaateynayay waxay isugu soo baxeen barxadda khayriyada hargeysa ka banaan baxeen gabilay meel walba ka banaan baxay iyagoo dabaaldegayo faraxsan in qarankoodii ana gacan ku samayska ahaa oo wax burburiyay oo dad islaamid guryahoodii burburiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba kuma dahsoonee waxay haddana mar labaad isugu soo baxeen oo isugu soo banaan baxeen iyagoo barooranaya marka labada banaan bax iyaga laga rabaa jawaabta wuxuu kaloo yiri dawladda aniga wixii hayla iimaanay ninkan waa habar jeclaa Faysal Cabdi Bootaan way waa la bariyeen waxay yiraahdeen waan kugu seexanaa garabkaaga aanu nahay waxaan ku si cad waa reerka kaliya badharay xitaa nimankan habar wala meesha hadda madaxda ka iyagu wax walba ha munaafaqadayeen laakiin afkooda haysaneen xitaa kaamirooyinka hor imaan maayeen wax walba waa wanjalayaan kuwan habar yoonisan iska badaago kuwan garxaajka iyo iska dad maartay iska qalbi saafi iska masaakiin way kuwaas laakiin ninka badheeray ee geed la istaagay ee af dheer iyo af gaabanba ku taageeray horta ninkan waxa ninka maanta takara dhabanaya ee boodboodayana waa isaga marka waxaan leeyahay aduba labada jeer goortee waaranta inaad tiraahdo marna qaran baanahay marna waxa weeye qabiil baa loo bedelay inay qabiil u bedelantayna waxaan kugu soo gabagabeynayaa deegaanada maanta laga wada rabshada ee abaabulka laga wada ee la iska ururinayo ninkan iskale waa deegaanaha habar jecla leedahay marka adiga qarankaagu ma qaran gacan ku samaysba mise waa qaran qabiil labada bal iga jawaab okay su'aashaas ka jawaabaya ilaan deegaanada oo horta habar jeclo deegaanada habar jecla deegaanada habar jecla deegaan dadku wada nool hadad laakiin garoon weyno wada noolaashihii iyo dad walaaltinimadii iyo abtinimadii xeerkii hadad garoon weyno nin walba awood u leeyahay nin walba ninka wuxuu dheefo awood nin walba de waa rag uma kala dheeraad diini soo ku siinaya halkan ku dhameeyay haye wad anu waa ku dhageysanay haye hadda diini waa dhulbahante haye Laascaanood haye saga deegaan waa haye laakiin aqal xumada haysata waxa weeye haye habar jeclo afka ku ayaa afar la tasaalo haye habar jecloba nimanka dawladda arki maayaanba waa habar jeclo waaye maadaama habar jeclo afar iyo labaatan ka saacado dhageyso marka adigu ina iisug ma walaale ma waxaan rabaa inaan su'aashan iga jawaabo ma jawaabayaan dhamaysto diin ha dhamaysto da walaale wuxuu ma jiro isagii baa ku jiray walaale wuxuu isagu ku jiro in karaya waa uu karaysa haye dhamaysto hada reerkaaga ku jiray nimcaan dhamaysto sida aan doono waan u hadli karaya jawaab walaale hadda qaada hada haye uu dul qaadanaya sug anaka waqtigaaga soo gaaraysa diin sug ani dul wad haye wad ada meega iska leeyahay xabada waxay jisanaysaa hadalkan wuxuu anigu dadka waaweynka anigu wal heavyweight champions baan anigu dadka adiga loo okay diin sug kabtar sug haye diiniyo horta inaad Soomaaliland darnimadu iyo qaranka iyo qabyaaladda marka laga hadlayo anu horta mararka qaar ma isqaawiyaaba horta moogtayna saameeyo sheeka kale anigu mar baan isqaawiyaayo qaranka si dartiisiba isku qaaminaysa mud hadalkayga daawariya haye qaranku xaqu ka shaqeeya bal ii weydii xaqu haysta anigu qarankayga Soomaaliland haddaan nin isaaqa ahay isaaqnimaan u ahay dawladnimo kadib guursiba igala degaa gabooya igala degaa cid walba way la degtaa isaaq cid ka soo wada degaa haddana caalam bay leeyeen dawlad bay leeyeen wararka 30 sanadood maanta adduunka raaxaysanaya
soomaad garan ku soo maanta siduu ila hadlaa in yar oo dalkiisii iyo dadkiisii baabiyay 48 saacadood gudaheeda lagu yiri nin baa laga dilay hebel oo malaanga baa tahay inta lagu yiri ee qoriga qaatay ee hooyadii barakacday ee walaashii barakacday ee inaadirkii barakacay ee dadkiisii barakaceen ilaahay baa ugu dhaariyay maanta ma in yaro sida dadkiisii ma waxaan rabaa isaguna uu raaxaysanaya qaxyo bac looma baahna adu adaa qaxay ana ku imaan bay hadda oo ka sii oo giyo burcay ka sii qaxay maya haydi kabtan tankaaga ku siinaya wad marka aan dhamaysto sida aad doonto waxaad raacayna marka aan dhamaysto marka aan hadalka dhameeyo qaado ninka sida ah maanta dadkiisii baabaayo dawa ooyisay waxaas balanbarayo ninkaasa maanta doodira qaadanaya laangaaminimada maanta lagu sheegaya waa ninka hooyadii iyo walaashii boor shacabka adduunka laangaaminimada lagu sheegaya soomaad garan igu soo wareeji mikrofon igu soo wareeji wuxuu yiri laangaabnimo ka hadlay maanta dhageysi ognahay halka marayo oo maanta halka hortaniyo doodiisa waa jaban tahay ilaahi tolay waxa la yiri ninka waxa joogay garan waaya waxa soo socdana ma garanayo wallahi anigu ninka waan ka waaya aragsanahay war anigu maalintii ugu horeysay la taano mudaharaadku ka bilaabmay heede isla markiiba maskaxdayda waxa ku soo dhacday dhulbaxo waa laga waaray sidii baan ku dhacday sideed iyo bil gudaheed ayaa si waaqro ku soo baxay oo cudbar ku soo baxay oo la isbaxaystay oo qoryo loo keenay oo madaafiic baabaqday oo aan dhacayn nimankii lagu waday maanta ninka dhulbaxanta maanta sidoo u dooraa isagoo dadkiisii noloshiisa maanta deegaanka la saxaabada horta ninkan wareer baadiye walaal 500 nin oo dhulbaxanta 600 sano soo socda ma dhalanaya garaadka maanu hayn kii ku doodaya guurka fasaxa ma yahay garaadka ma hayn guurka fasaxa dano afkii ma haysa qofka cantara baqashkiisa lama dhageysan baan haysan maya nimanka ka baxa miiriyaha af nool baa haysan ka baxa miiriyaha okay adaa ku soo celinaya nimcaan qorqab wuxuu dhahay 500 oo nin baa dhintay oo dhubaanta dhageysan ku dhameeyay wuxuu dhahay sida oo kale dad badan baan leeynay waan ilaga waalay hartiba inaga waalay 25 Agost 2023 meeqa ka dhintay maamulka Soomaaliland waxa ka dhimatay 2500 oo qof baa ka dhimatay meeqa maxaabiis ah maxaabiista 520 inta waliba shalay ilaa dorad baadiyaha laga soo helay ilaa iyo hadda isagiiba baadiyaha laga soo helaya wuxuu ka hadlay laangaabnimo isagoo horta Soomaalinimada isagu laba jeer buu ciilan yahay laba jeer buu Soomaalinimada ku dulmay koow horta Soomaalinimada markii leeyahay waa isaaq wadadka waa artay waa la iska qayliya laba isaaqnimadu buu ku sii dulmaya waa kaba isaaq waa habar jeclo waa marka saddexaadna waa ku ariga iyo geela noo raaci jiray oo Axmed Faarax loo jiray anu marka xoro inuu laandheernimo ii sheegto waxaan ku soo noqonayaa mawduuciisa dawladnimada wuxuu yiri hooyadiin baa qaxday horta waa reer baadiye waxaan xoog kala garan maayo dadku xaggay joogeen aniga familkayga markii la asxaano dagaalku ka dhacay qaar kala beer bay aadeen qaar meel la yiraahday aadeen daba taag maxay aadeen sax dheer waxay aadeen hawd bay aadeen qaar bari korkiisa aadeen dadku dalxiis bay iska aadeen teeda kale laascaanood ama reer laascaanood 95% dadkoodu waa wada qurba joog oo reerkii aan cidi u maqnay laba qof baa u maqan أنا بجيبكو كاش لا ميرون بارهايبا صرف لا أدون قايستا ريركو كاش ليا ريركو أسابة الله ضمبا دد باهن منين waxaa soo haray waxaan uu ka hadlayay wallahi waa reerka kaliya qurba joogta ugu badan daarood reerka kaliya leh waa inaga iyo ogaadeenka waxaan ku soo xiraya ku soo gabagabeynaya warniyo miskiin baa tahay dantaada garo aniga miskiin ka dhigay buu yiri ma tacaana leh adoo ilka hala oo hubkaaga aan furtay oo aan ku qaawiyay oo aan ku cayrsaday fuleynimo meel aad ka gaadhay fiiri gaarigu 120 kilomitir gaarigu misu ku jira ma taqaana wuxuu ku jiraa saacad buu ku jiraa miya saacad wax ka yar buu ku jiraa adigu 45 minutes isagoo cararaya wuxuu jaray 120 kilomitir lug jara carara marka walaal maalol bafadalka ka cabi kareeyno dantaada dadkaaga dantooda ka shaqee horumar samee Soomaaliland wax la yiraahdo wuxuu ahaa branki xildhibaan shaariya soo qaateen bal ninka aniga marjacayga meel kale ka tusaya marjaca aniga aan laabto ku jawaab hadalka maya uu kaaga jawaabaya maya hadalka doodu ka baqaya furay hada soo kuma furay he cannot even talk to me ma ila hadli karo because aniga waxyaabo cad baan u haya aniga marjaca loo laabto meesha aan u laabanaya waa garaadjaa waxaan ku soo kufinaya marjac ma taqaana hadaan wareero
golaha dhaqanka ugu dambeeyay loo ما حدان وريرو أما سيستم كويجا خلطمو قرات جامع بيجو قرات جامع كلا يجو قرات عبد الله بيجو قرات سلمان برهان يجو قرات كي جودة قرات كي دمان بقول برهان بيجو ويلكي مريحانة وجايس كهابة يجو isaga yaa marjicu ama taqaana xildhibaan shaar oo xafaayado xiran okay ku soo noqo su'aasha ka jawaab marka nin noocaas ma doodi karnaba isaaq laga hadlo aye ilaahay qof aan waxba ogeyn xadaab bay Soomaalidu tira aye isaaq hadii laga hadlo maanta nin isaaq ah horta nin xeerad leh aye taariikh waa jidka ku leeyahay war maxamed siyaar bare ayaa isaaq khiyaabay aye maxamed siyaar bare ayaa yiri 24 saacadood gudaheeda يا كل كان يودن كشيدال ساورة وسكون كان إسحاق هوية ما شرتين البحث ورر وبسكون كان أجور ورا أفر يلا بعد ساعات وريار إن ممكن كان عسلاش لقالها له أفر يلا بعد ساعات قد هيدا يا ودن كشيدال ويقول كان يا أوكي مركا نود بورا قرار بورا عامس شبت قرار بسير هذا مسكوري نكهويو إمسال يقول كنا ساب شو البربا يقول كنا بسوا كوري نكى كنا أنا بشرتين إمسال يقول كنا سشيدال بسوا لباب بلاد بقول كنا كي دارود